islaamka waa maxay islaamka macnihiisu bulshooyinka caalamka inteebaa muslima xagee bay ku kala nool yihiin tir ahaan intee bay gaarayaan islaamku noocyadee buu u qaybsamaa daliilada iyo adilooyinka kusoo ururay waa maxay kusoo dhawaada mowduuceena haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale riix kambaneelka si muuqaalada soo gelina kuugu soo dhacaan markaba bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu halkani waa hubaal bartaan youtube-ka ku leenahay kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa islaamka kelmadda islaam macnaheedu waxa weeyaan isu dhiibidda allah kelmadda islaam waxay ka timi kelmadda carabiga ah ee salaam taasoo loola jeedo nabadgelyo islaamku waa diinta saxda ah ee ilaahay usoo dhiibay nebigii ugu dambeeyey ambiyada ee nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee muslimiinta caalamka oo dhan waxay u kala qaybsamaan ama ay kala yihiin sunni iyo shiico ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور waxaa ka cabsada ilaahay addoommadiisa aqoonta leh ilaahayna waa adkaada dembi dhaafa ah nebigeenu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu isaguna yidhi ka ula doonaya ilaahay khayr waxa uu waafajiyaa diinta bulshooyinka caalamka ku nool ummadda diinta islaamka aaminsan waa ta ugu badan ummadaha diimaha haysta oo sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kusoo biiraya diinteena suuban malaayiin qof tirada bulshada caalamka oo dhan ee qarnigan muslim ah waxay kor u dhaafaysaa 1,300,000 jasiiradda carbeed oo ay diintu ka soo bilaabatay waa lagaga dadbadan yahay inta diinteena aaminsan oo wadamada hindiya indonesia iyo shiinaha ayaa wadan marka la yiraahdo ugu muslimiin badan wadamada adduunka rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri waxa uu la mid yahay wixii ilaahay ii soo diray ee hanuun iyo cilmi yahay sida roob helay dhul waxaana ka mid ah dhulkaas meel carasan leh oo biyihii qabatay soona saartay baad iyo doog fiican waxa kale oo ka mid ah dhulkaas roobku helay meel ahayd dhul adag oo haddana biyihii qabatay ilaahayna waxtar uga dhigay dadkii oo ay markaa ka cabeen ka waraabsadeen kana beerteen waxa uu helay roobkii meel kale oo dhulka ka mid ah laakiin aan sinayn oo aan qaban biyo baadna soo saarin waxaana sidaas ka dhigan sida qof dhugtay oo fahmay diintii ilaahay waxna u taray wixii ilaahay ila soo diray oo markaas wax bartay laftiisu waxna baray dadka kale iyo sida mid kale oo aan madaxaba kor u qaadin aan waxba taransan waxa la ii soo diray oo aan qaadan hanuunka ilaahay ee la igu soo diray adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi إن الدين عند الله الإسلام diintu ilaahay agtiisa waa islaam nebiyadii ilaahay soo diray oo dhanna diintaas keliya ee islaamka ah ayuunbay addoommada ilaahay soo gaadhsiinayeen wixii ugu dardaarmay nebi nuux iyo wixii aan u waxyoonay nebi maxamedow xaggaaga iyo wixii aan u dardaaranay nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise inay ogaan diinta aydinaan ku kala tegin dhexdiisa nebigeenu isagoo arrintaas inoo caddaynaya waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam nebiyadu waa walaalo kala baho ah kala hooyooyin ah diintooduse ay mid tahay laga soo bilaabo aabaheen nebi aadam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ilaa laga soo gaaro nebigeenii suubanaa sallallahu calayhi wasallam
naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dadka waxay ugu baaqayeen hal jid oo ah jidka diinta islaamka, jidkaas oo ah ka addoonka ku ridaya dariiqa loo marayo jannada Ilaahay addoommadiisa wanaagsan uu ugu yoobohay kii diin kale ka raacana eebbe ka yeeli maayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. qofkii ka yeesha waxaan islaamka ahayn diin laga aqbali maayo isaga aakhiro waxa uu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray. barashada diinta islaamku waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah, taasoo noqonaysa waajib sharci ah. diinta islaamkuna waa tiirar ay ku taagan tahay iyo dhismaha tiirarkaasi hayaan, kaasoo koobaya habnololeedka dhammaan dhinacyada nolosha ee dadka muslimiinta ah.